بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. ولا ليال درسينا دينيغاهو ودرسك هادلايا الأمر بحفظ اللسان. أنغو درسك هوريي سو قادناي كانوا وحو نقونيا درسك لباد او كهادلايا الأمر بحفظ اللسان. ما دام درسك هورو asagoo waxa weeye axaadiis iyo maaragtay amuuro wanaagsan oo ku tacalluqay ay noo socdeen aanu soo koobnay qaybaha kale oo ka sii dhiman ayaanu maaragtay darsigeena labaad ku qaadanaynaa. marka ugu horeysa waxaanu soo qaadanaynaa xadiis isaguna waxa weeye xadiisu saxiixayn ah oo laga wariyay saxaabiga jaliilka ah oo leeyahay Abu Hurayra عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. حديثك كان وعوده صحابي أبو هريرة ليراهدو رسولك عليه الصلاة والسلام أيان مقلي إساقو دهاية إن العبد أدونكو لا يتكلم بالكلمة كلمة أيوكو ورمياه. أدون كذا ماشى وحال جودا إنسان كمكلف كه أما حر هالنقض أما عبد هالنقض وحكس هالنقض كلمة أيو شيء يا مركز أو كلمة هي كلمتين هي كل وإسلامت معناه هذا البو شيء يا وي مركز كلمة أيوك هذا يا ما يتبين فيها منع الضيسان أيو. وأنا وراكو صوب مرنا درس جينا إمام النووي هذا الك marka la hadlaayo waxyaabaha loogaga baahan yahay shuruuda ayuu noo soo sheegay. warka markaad ku hadlayso waxa loo baahan yahay muxuu keeni karaa inaa istilaahay oo aad ka fikirtaa loo baahan yahay. marka qof ayaa wuxuu dhahay wuxuu isaga hadlayaa kelimo isaga hadlayaa dad waxa jira sarsaariin la yiraahdo ama badi u lisaan la yiraahdo warka iska tuuraa jira oo reer war badan ha jira warka badan balaayo badan buu keenayaa. kelimo ayuu isaga hadlayaa uu dhahay يزل بها إلى النار. كلمة سبب كذا أيو نار تكو هوبنا هوده أو كلمة أو كهذلي أيا وحيو كنيسة نار تإنه كهوب تيو كنيسة أو نار الغطورة وهي إلى جهتها ويقرب منها نار تجهديد إلا آدي أو لود ويو كبعدنا الغطورة ما يتبين فيها أو سنع دي سنين يزل بها إلى النار. نار تأيو كل هوبنا يا وهنا النار تقصيه هوبانيا مسافة أو مارتيا كفق أبعد مما بين المشرق والمغرب. مشرق يا مغرب أنت يسجران وحكبضا أيو نار تقصيه هوبانيا. في هذا مركب وحوي هل كلمة أكنت وكلمة وحوي قفك أو سنكفكرين أو محي تركرتا محي جيهيسا محي دم بجيد ولا إجها أو سأسلهن. أرنت مركب سن قبضا المجتمع إذا مركب نجوجنا أرنت أسوي. وحوي قفك مسلم كاهو انت وحوي دباتده او كفغا كرو اي markaas namiimada iyo qiibada iyo hadallada markaas oo dacaayada iyo fadhi ku dirka wax loo yaqaano waa in la iska ilaalishaa. dad ayaaba jira dhaqan ka dhigtay meelaha la yiraahdo fadhi ku dirka Soomaalidu yaqaaniin mar walba u soo maaratay hadal tagaa jira. war hadalkaas waxa weeye dhibaato keenaya waa laga shalay doonaa. hadalka waxa loo baahan yahay hadal maslaxa keenay inuu yahay oo la hubo hadii kale tood waa in laga aamusa. rasuulku kaleey salaam sidaas ayuu dhahay. waa arrin markaasi waxa weeye dhibaatada iska leh qof naar u adkaysata ma jirto. dad lucafaa ahaanahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala cadaabkiisa uma adkaysano waxa weeye wixii sababi lahaay waa inaanu iska ilaalinaa. maxaa yeelay hadda nabiga kaleey salaam kelimadaas qofku naarta oo kula hoobanayo waxaa sababteedu ay tahay uu dhahay nabiga kaleey salaam waa kelimo oo san ka fiirsan oo macnaha waxa weeye kama fikirin annaha khayrun am la
inay khayr tahay inaysan khayr ahaynin marna kama uusan fikirin. xadiis kale waxaanu soo qaadanaynaa asna xadiis bukhaari uu wariyey ah oo abu hurayra uu nabiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhaha rasuulkeenu haddane ina alcabda laa yatakalamu bilkalimati min ridwaani illaahi tacaala maa yulqii lahaa baalan yarfacuhu llaahu bihaa darajaatin wa ina alcabda laa yatakalamu bilkalimati min sakhadi illaahi tacaala laa yulqii lahaa baalan yahwii bihaa fii jahannama walciyaadu billaahi tacaala. xadiiskan labau isku shamlinayaa. waxau dhaha rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam addoonku wuxuu ku hadlayaa kelimo ayuu ku hadlayaa, kelimadaasoo ilaahay uu ka raali yahay oo waxyaabaha ridaha ilaahay keenaysa ka mid a min ridwaanillaahi tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka raali yahay ayay ka mid tahay oo waa kelimo markii lagu hadlo ridaha ilaahay keenaysa weeye. maa yulqii lahaa baalan asagana hadda waxa weeye wax ihtimaama maba siinaynin oo hadda qalbigiisa xataa waxa weeye maa yulqii lahaa baalan wax qalbiyo u soo riday ma jirto, waa iska yidhi asagoon hadda saasuu sii waaweynayhayn ayuu iska dhahay waa kelimo khayra oo hadda asaga markaasi muhiima saas aan la lahayn. yarfacuhu llaahu bihaa darajaatin, ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimadaas sababkeeda ayaa darajaad ilaahay kor ugu qaadaya, derajadiisa janno ayaa kor loogu qaadayaa weeye. macnaha waxa weeye yarfacu llaahu darajaatihi, darajaadkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala kor ugu qaadaya oo darajaadkiisa jannada ayaa kor loogu qaadayaa. hadda kelimadaas wax weyn ma uusan siininoo xataa wax weyn kama dhigaynin. waxaa la rabaa marka inaad markaadba un warramayso inaad ilaahay khayr isaga hasho, inaad astakfirullah iska dhahdo, subxaanallaahi aad tiraahid, alxamdu lilaahi aad tiraahid, allaahu akbar aad tiraahid, laa ilaaha illa allaahu aad tiraahid, salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam allahuma salli calaa sayidina muxamedin wacalaa aali sayidina muxamedin wasalim, saas aad tiraahid. waxa weeye marka waa kaasaa kelimahoo markaas aasan qalbiba u haynoo hadda wax weyn uusan ka dhigaynoonan hadda wax ihtimaama siinayn. ilaahay ridihiisa wixii keenaaya waa dikriga alla subxaanahu wa tacaala, inuu markaasi taasne darajaadkiisa jannada ay ku koryeelayaa. taas cagsigeeda rasuulku waxau dhahay wa ina alcabda la yatakalamu bilkelimati, addoonku ama insaanku wuxuu ku hadlayaa kelimo ayuu ku hadlayaa oo min sakhadillaahi tacaala ilaahay caradiisa keenaysa, hadal cara ilaahay ay ka dhalanayso ayuu ku hadlayaa. laa yulqii lahaa baalan, wax markaasi qalbiya ma siinaayo asagoon qalbigiisa saas u sii feerfeerin oon ka fikiraynin ayuu isagaga hadlay. aad iyo aad bay ula sahlantahay arrintaas, wax aad iyo aad u badan weeye. yahwii bihaa fii jahannama, kelimadaas sababkeeda ayuu naarta jahannamo kula hoobanaya u dha rasuulka calayhi salaatu wasalaam. jahannamo ayuu kula hoobanayaa, waa arrin yaable weeye. marka waxa weeye axaadiistaas waxaa nala ku boorinayaa waxa aynu lisaankan ku sheegayna inaanu iska ilaalino, oo haddii waxa weeye shaygaas aan ilaalino hadduu khayr yahana inaan lisaankayna aanu ku sii dayno, haddii waxa weeye shar uu yahana lisaankayna inaanu ka haysanno. lisaankan in la iska dabra ayaa la doonayo xarig la isagaga xidho, haddii kaleentood waxa weeye faraha ayuu kaala baxayaa. xadiiskaas marka waxaa wariyey imaamulbukhaari ayaa saxiixiisa ku wariyey. xadiis asaguna sidaasoo kaleentooda laakiin siyaadaad kale iska leh ayaanu soo qaadanaynaahoo xadiis isagana imaamu maaliki kitaabkiisa muwadda uu ka wariyey, tirmidi sunankiisa uu ka wariyey ayaanu soo qaadanaynaahoo sanadkiisuna saxiixuu yahay. xadiiskan isagana waxaa laga wariyey saxaabiga jaliilka hole bilaal ibnulxaaris almusani radiallaahu canhu ayaa laga wariyey. marka waxau dhahay anna rasuulallaahi sala allaahu calayhi wasalama qaal ina arajula la yatakalamu bilkelimati min ridwaanillaahi tacaala maa kaana yadunnu an tabluqa maa balaqad yaktubullaahu lahu bihaa ridwaanahu ilaa yowmi yalqaah. wa ina arajula la yatakalamu bilkelimati min sakhadillaah maa kaana yadunnu an tabluqa maa balaqad yaktubullaahu bihaa sakhadahu ilaa yowmi yalqaah. waxau dhaha rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam isla xadiiskay ka macno dhowdahay. nin ayaa wuxuu ku hadlayaa kelimo ku hadlayaa
ridaha ilaahay uu ka dhalanaayo asaguna ninkaas u malay maayo kelimadaasu meeshay gaartay inay gaartay oo waxa weeye kelimo oo weyn oo khatar ah oo waxa weeye ilaahay agtiisa maqaam weyn kule inay tahay ma oga asagu waa isagaga dhawaaqay kaliya allah subxaanahu wa tacaala ayaa uu qoraya kelimadaas sababkeeda ayaa ilaahay rilihiisa u qolayaa ilaa yowmi yalqaahu intii ilaahay la kulankiisa laga gaaraayo maalinta qiyaamo marka ayadoo sawowgeediyo jasiira u yaallo asaguna wax weynba uusan ka soo qaadayn ayuu ilaahay agtiisa u ka helayaa sawow oo aad iyo aad weyn buu ka helayaa haddana rasuulku waxa u dhahay nin ayaa wuxuu ku hadlayaa kelimo ku hadlayaa carada ilaahay dhalinaysa isla markaasna uma malaynaayo kelimadaasu inay gaarta meeshay gaartay asaga waxba lama ahan way isagaga hadlay laakiin meel xun bay gaarta kelimadaasu yaktubullaahu bihaa sakhadahu ilaa yowmi yalqaah ilaahay subxaanahu wa tacaala caradiisa ayuu qorayaa oo waxa weeye diiwaanka oo madow oo markaasi xun oo fujaarta ayaa lagu qorayaa ilaa ilaahay maalinta qiyaamo uu kala kulmaayo oo wixii uu sameeyey lagu jaasinaayo imaamu maalikiya kitaabkiisa muwadda'a ku wariyey san horuu sheegnay tirmidina sunankiisa uu ku wariyey waxauna dhahay weliba imaamu tirmidi xadiis xasana oo saxiixa weyuu dhahay marka hadda waxay markaasi taasi ku tusinaysaa cid walba in laga doonaayo lisaankiisa inuu ilaaliyo waraa inaan lisaankeena waa inaanu ilaalinaa xadiis kaleo waxaanu soo qaadanaynaa isagana tirmidi uu leeyaho sikiyo oo kaleentooda sufyaan ibnu cabdillaahi ayaa laga wariyey waxau dhahay qultu waxaan dhahay yaa rasuula allah xadisnii biamrin actasimu bihi ilaahay rasuulkiisa waxaad ii sheegtaa amar aan sidaas ugu dhego oon qabsada ii sheeg oo aanan ka foqin oo markaasi naftayda badbaada ugu sugan tahay markaas wuxuu dhahay qaala nabigu waxau dhahay yuri calayhi salaatu wasalaam qul waxaad tidhaahdaa sufyaanow rabbiy allaah uma astaqim waxaad tidhaahdaa rabbigaygu alla weeye oo marka hore waxa weeye aas-aaska acmaasha dhis waa iimaankee saasaa laga wadaa ee rabbi allaah kali inuu leeyahay maaha waxaa laga rabaa inuu maaragtay maskaada muslim u ahaaye iimaanka asaaskiisa inuu dhiso acmaal saalixa uu sameeyo ayay tahay macnuhu marka waxaa weeye ad kabacdina toosnaw ayuu dhahu rasuulka calayhi salaatu salaamo waxaad ku toosnaa awaamirta ku toosnaa wixii ilaahay ku faray ka dheeraw ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu kaa reebana ka dheeraw waa aayaddii macnaheedii ina aladiina qaaluu rabbuna allaahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu allaa takhaafuu walaa taxzanuu wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun aayaddaas haddii lasii raacanayda saas weeye istiqaamada ayaa lagu helayaa daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala la laasimo waaye ilaa markaasi qiyaamada ay ka dhacayso marka waxaan dhahay yuu yidhi yaa rasuulallah maa akhwafu maa takhaafu calaya rasuul allow maa akhwafu maa takhaafu calaya waxaad igaga baqayso waxa ugu cabsi badanu maxay yihiin inay igu dhacaan waxa inay igu dhacaan aad ka baqayso ta ugu sii cabsi badan waati fa akhada bilisaani nafsihi waxau dhaha markaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam lisaanka naftiisoo qabtay carabkiisoo saa u soo bixiya nab ayuu dhah ficlow ku tusinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam suma qaala waxau dhahay haadaa ayuu dhahay midkaan weeye midkaan war midkaan iska ilaali war lisaankaan iska ilaali oo carabkaan meel iska saar dadka waxaa loo cadaabayo saa hadda soo maraynay lisaankaas weeye war qof walba waxa lisaankiisa ka baxaya ku dadaalo dadka weliba markaasi saaxibulkalaamkaa kuma jiraan sida dadka maaragtay khudabada oo khudbada akhriya dadka maaragtay u soo jeediya mawcidada iyo tawciyada dadka masalanba hadda ruwaadda weriyaasha oo hadla dadkaasoo dhan waxaa weeye asxaabu lisaana la yidhaah maadaama lisaankan ay ka shaqeeyaan waxaa loo baahan yahay carabkooda waxa ka baxaya inay iska ilaaliyaan daa-in ilaan ayagu hadal bay maaragtay laga maarmaan u ah marka waxa afkooda ka baxaaya waa inay iska ilaaliyaan sida rasuulka calayhi salaatu salaam uu u dhahay sidaas hadalka lama rabo ilaahay dikrigiisa waxaan ahayn yaan la badinin sida uu dhahay cabdullaahi binu cumar rasuulkaa yidhi ou dhahay calayhi salaatu wasalaam laa tuksiru lkalaama bikayri dikrillaah fa ina kasrata alkalaami bikayri dikrillaahi tacaala qaswatun lilqalbi ou dha rasuulku waa u dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ha badinow dhahay hadal oon ilaahay xuskiisa ahayn
markii alla la xusaayo waa la badinayaa maxaa yeelay ilaahay dadka xuskiisa badiyo uba ammaanay oo janno u yaboohay waddaakiriina allaha kasiiran waddaakiraati acadda allaahu lahum makfiratan wa ajran cadiima waa towdha ilaahay ragga iyo dumarka ilaahay xusida badanne ilaahay wuxuu u yaboohay makfiro iyo ajri weyn oo jannadii ah marka waxaa la rabaa haddii kalaam oo kugu badnaanayo dikriga ilaahay inuu noqdo fa inna kasrata alkalaami bigayri dikrillaahi tacaala hadalka oo bata oo dikriga ilaahay aan ahaynin qaswatun lilqalbi oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qalbiga ayay qallajinaysaa waxa weeye qofka dabcigiisa ayaa adkaanaya qaswatulqalbi yaa ku dhacaaya dadka hadda quluubtu waxay u qalalayso oo rumi wax kasta loo sheega uusan u qaadanayn oo waxba aysan wa dhaadhacaynin waxa weeye lisaankooda ayaa waxa weeye ku badatay waxyaabo maalaa yacniga ku batay wa inna abcada annaasi min allaahi alqalbu alqaasiya udha rasuulku dadka midka uga fogaan badan oo ilaahay ka fogaasho badan oo ilaahay naxariisiisa ka fog waxaa weeye u dhah rasuulku calayhi salaatu wasalaam alqalbu alqaasiya u dhah waa midka qalbigiisa ou qalalan yahay qalbigiisaa qalalay ilaa qofka hadduu qalbigiisu qalalo wax khayra samayn maayo fa innahu liqasaawati laa ya'tamiru bikhayrin walaa yansajiru can sharih waa weeye qalbigu markuu qalalo qofku shay khayra ma fartoomaayo shay sharana ka joogsan maayo marka wuxuu ka fogaanayaa dadka muflixiinta ah oo liibaanay oo faa'iisiinta ah sifadooda ayuu ka baxayaa wuxuu gelayaa fii sumratil ashqiyaa dadka shaqiyaalkaa jamaacadooda ayuu gelayaa oo naxariista ilaahay ka fog ayuu gelayaa waxyaabaha markaasi qalbiga markaasi qallajinaayane kasratulkalaam bikayri dikrillaahi ayaa ka mid ah marka waxa weeye qofka muslimka ahow waa inaa arrintaa iska ilaalisaa taa waa inaa iska ilaalisaa weeye marka waxaa kaloo dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiis isaguna waxa weeye tirmidi uu wariyeyoo xadiis xasana ah waxau dhahaa nabigu man waqaahu llaahu shara maa bayna lixyayhi wa shara maa bayna rijlayhi dakhala aljannata u dhah qofki ilaahay uu ka dhowro labadiisaan lafdaan waxa u dhaxeeya waa lisaankee iyo labadiisa lugood waxa u dhaxeeya waa farjigee kaasu janna u galow dhah rasuulku meesha laga balaayeysto laga hoogay halkaas weeye oo dadka markaasi cadaabka meesha ku xaabinaysa waxa weeye lisaanka iyo farjiga ayaa ugu badan maxaa yeele waaba isla socdaan oo waxa weeye lisaanka xataa qudhiisu wuxuu soo jiidayaa wixii markaasi farjigu meel xun uu ku tegi lahay rag iyo dumar wixii uu yahaba ayuu soo jiidayaa weeye xadiis laga wariyey cuqbata ibnu caamira waxau dhahay qultu yaa rasuulallaah man najaatu rasuulka ilaahay aan dhaxaan dhahay maxaa lagu koraa rasuul allow bal u fiirta asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii markaasi aakhiradooda kori lahay ayay nabiga mar walba ka weydiinayaan waxay naftoodu ku badbaadi lahayd ayay raadinayaan war dadka waxaa weeye qaflada ku dhacday iyo qasaawatulqalbiga waxa keenaya ha iska ilaalishaano marka rasuulka markaan dhahayuu dhi ilaahay rasuulkiisaoo maxaa lagu korayaa waxau dhahi amsig calayka lisaanaka carabkaaga ka haayuu dhahay carabkaan iska haay war carabka iska celi intaas waxaa weye inta carabka ku hoogtay oo ku khasaartay adduuniya aakhira wax yar maaha lisaanka muhiim weeye meesha loo diraayo iyo waxa lagu sheegaayo waa in laga fikiraa waleesacka beytuka ayuu dhahay gurigaaguna waasaca kuu noqdo gurigaaga waasaca kuu noqdo macno badanaa lagu fasiraa walyasacka beytuka u dhahay gurigaaguna waasaca kuu noqdo oo waxaa la rabaa inaad maaragtaya gurigan culammada qaar waxay yidhahdeen waaba waxaa laga wadaa waa xaqiiqada guri waasacaaba la jeclaaday maxaa yeele guriga waasaca wax walbaad ku samaysan kartaa carruurta iyo adiga iyo dadka martida ina kala baxdiinaad meelaad ku daacaysato ood maaragtay heli kartaa laakiin guri cariiriya waxaa weeye waa shu'mi weeye kaas ama waxaa laga wadaa hay yidhaahdeen waxaa laga wadaa gurigaaga waasaca kuu noqdo waxa weeye cibaadada iyo daacada ilaahay badi alictisaal can alaqyaar waxyaabaha dhacaayana ka foga weeye oo waxyaabaha dhibaatada laka dheeraw wabki calaa khadii'atika gefkaagana ka ooya u dha rasuulku oo haddii waxaa weeye gef uu kaa dhaco gefkaas ka shalay oo ka nadaamo adoo dembi galay inaad iska qosqosasho
ood maaragtay dadaaba hadday dembiga galena ku sii faanaya waa musiibo weeye taas towbadaba laga aqbali maayo qofku wixii uu soo sameeyey hadduusan ka nadaamoon ee wixii uu soo sameeyey oo ciyaala suuqnimada ah dadka uu sheekayahayo amba hadday tuuga ahayd ambay zine aheeday ambay hadal xumo aheeday markuu saas leeyahay qof wixii weli maaragtay sii doonaya weeye qofkaas waa qofku waxa inuu gooyaa loo baahan yahay marka darsigeeni labaadoo ka hadlaayay xifdu lisaanne intaas ayuu isaguna noogu eg yahay wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد